farxaantiisi weeye waxaan rabay kalo inaan ku darsado in yaroo kaleeto wiigi hore topic yaraan kusoo tuurtay oo ahayd dhinaca safety ku saabsanayd in macnaha lacagihiina la oran intaas lacag bitcoin baa haysanaa ay macnaha ay dhibaato keeni karto lagu afduubi karo dad la afduubay aan ka sheekeeyey wiigaan waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo oo in yaroo soo koobo ah waxaa jirta waxa la dhaho qofka hadduu bitcoin haysto oo hal sano ay kasoo wareegto oo inaad saka ka bixisid hadda badanaa dadka muslimiinta waxay sameeyaan ramadaanka duu soo dhow yahay ramadaan kale ayaa saka la bixiyaa sakadu waa waajib ka mid ah sida salaadoo kaleeto wey haddaa lacag $600 u dhiganta nisaab wax la yiraahdo jira aad haystid bitcoin ku haystid ama crypto kala shitcoin kala ku haystid waa inaad saka ka bixisid oo hal sano haysid marka arinta sakada hal raadiyo $600 bay u dhiganta hadda inta 85 grams oo dahab way haddaa haystid in ka badan oo hal sano haysid waxa kugu waajibaysa saka way kugu waajibaysa oo 2.5% ah $600 hadda salahan waxa ku waajibaysa $15 meelahaas marka sakadaasaan rabaa inaan idin sheego sakadan hal iska bixiyo dad badan waxa jira dhowr sano soo haystay crypto oo laga yaabo inaysan saka bixin ama aysan maqalba hadii doonaa marka maxamed hadaa wax yar kula kaftamo I don't think shitcoin inay zaka galaane laakiin taajir